gudoomiyaha gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Saraar Faysal Ismaan Saciid xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer ku soo maray mashaariicda beeraha ee iskaashatooyinka beeralayda ee deegaanka Habareeshay oo ah deegaanka ugu horeeya xagga beeraha gobolka Saraar iskaashatooyinka beeraha oo gacanta ku haya xilligan uu gudoomiyaha gobolka kormeerka ku marayay dalab kala duwan oo ka soo go'ay oo ay ka mid yihiin haruur galey xabxab iyo sisin ayaa ugu horeynba mahadnaq weyn u soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saraar oo ay kormeerkiisa ku tilmaameen mid dhiiri gelinaya wax soo saarka ay bariga ka wadaan Ciise Xaaji Nuur oo kamid ah iskaashatooyinka beeralayda ee deegaanka Habareeshay ayaa waxa uu tilmaamay isla markaana uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay isuduwaha beeraha gobolka Saraar Faysal Ismaan Saciid oo uu ku tilmaamay mid si weyn ula shaqeeyay iskaashatooyinka beeralayda ee deegaanka Cumar Maxamuud Muuse xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba ayaa isna farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in la dhiiri geliyo beeralayda isla markaana wasaaradda beeraha ugu baaqay inay qalab iyo agabka beeraha soo siiso iskaashatooyinka beeralayda ee